waxaan ka digaynaa haddaan laamaha amniga nahay in ay sharci noqoto waxyaabihii sharci darrada ah oo la dhayalsado in qori lala soo galo magaalooyinka in is-hortaag lagu sameeyo shaqooyinka. waxaan dadweynaha u sheegayaa horta magaalada Ceerigaabo waa nabad, dadkii qaxayna dhib un bay kororsadeen soo noqda, qaar badanna waa soo noqdeen. nabadgelyada maanta ay haysato waqtiyo badan ay soo martay bay ka fiican tahay. wax dhiila aan ognahay ma jirto, yaan dadka la barakicin oo caruuraha iyo ardada iyo maartay la salkicinin, waxaan awoodi karin waalidiintu yaan lagu kalifin. waxaan ka mahadnaqaynaa waalidiinta iyo mas'uuliyiinta iyo nooca yihiinba nabadgelyada u shaqeynaya maxaan ku idhahdaa hadhiyo habeen u taagan waa u mahadnaqaynaa. waxaan ka digaynaa haddaan laamaha amniga nahay in ay sharci noqoto waxyaabihii sharci darrada ah oo la dhayalsado in qori lala soo galo magaalooyinka in is-hortaag lagu sameeyo shaqooyinka ciidanka nabadgelyadu ay hayeen nooca yihiinba. waxaan leenahay hal la taageero ciidamada nabadgelyada. runtii dee waxaa iska jiray guux. anigu waxaan idhaahdaa amni darrada gobolka ka jirta miidiyaha ugu badan, ayaa ugu badan. dadka warxumatashiilka ah waxa hadeer wax lagu qaato oo dadka qaxiya oo dadku warka ay ku weydiinayaan waxa weeye mid aan waxba ogeyn oo waxaan jirin meesha halkaa ka sheegay, ama qof si khaldan wax u sheegaya warkiisa sii daayay. saxaafadda waxaan ku boorinaynaa iyadoo ay saxaafadda qaar badan oo sharafli ku jiraan inay wanaagga iyo nabadgelyada u shaqeeyaan, inay bulshada dhex u ahaadaan, inaanay maaragtay dad ishaya group ama afkaar isku haya ama siyaasad isku haya aanay la kala safan. sidaa weeye saxaafadda saxda ah sida laga doonayo, iyadoo aanaan lahayn wixii jira hala qariyo. waxaan jirin in la sheego ayaa ka awood badan in wixii jira la sheego. marka waxaan leenahay waxa jira sheega, waxaan jirinna beeniya. saxaafadda intaasaan odhanayaa.